بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدبان السلام يا بهوين توركا cadaaladda iyo Sinaanata sine. indhaweyd waxaad moodaa inaynu maaragtaan aynaan aad u kala warqaadanin. waxaan jeclahay inaan insha allahu tacaala waxoogaa dhowr arrimood idin dul maro haddii alla idmo. halganka baabiinta dhaqanka haybsooca iyo aafada qabyaaladdu waa laba arrimood oo runtii u baahan karti fara badan, dadaal, daacadnimo, dadka iyagoo arrintaa gelaya oo ay ka dhab noqoto oo si dhaba u aamina oo maaragtaanay camalkooda iyo niyaddoodu ay is leedahay waqti dheeraad oo loo horo. waa albaaba aad oo adag weeye oo buur salkeed ama buur weyn oo qaafaa waxay la mid tahay inaynu dhinaca ka soo bilowno albaab weyn oo kunfiida furitaankiisa inuu dhinaca kale uga baxay. waayo waxaa arrintaa inoo caddaynaya dadka Soomaaliyeed aynu doonayno inaynu wacyigelinta ku samayno inuu nagu ka mid nahay. aad iyo aad bay u aaminsan yihiin arrinta. baaritaanno fara badan ka bacdi waxaa soo baxaya yani dadka Soomaalidu halka ay ka taagan yihiin arrintan aanay meel dhow ahayn, meel dhow maaha. laba arrimood baanaysa saaran meesha. mid waxa weeye fikradahan qaldan ee qabaa'ilka qaar laga aaminsan yahay haddii ay yihiin dadka Soomaaliyeed siday u eg yihiin lagu dhibaateeyo iyo dadka Soomaaliyeed haybtooda dadkeed loo dhibaateeyo. midna waa waxa la yiraahdo qabyaaladda. dhibaatada guud ee marka hore wada haysata Soomaalidu ay waxba aan loo qaban karin waa qabyaalad weeye. tusaale ahaan in ummad Soomaaliyeed intay isu timaaddo is aaminto oo ay Soomaalinimo darteed wax ku wada qabato ayaa arrin aad iyo aad oo aan maaragtay suurtagalkeedu aad waayo waxaa jira inaanay dadka Soomaaliyeed isu si bannaanayn qabyaaladdu ay kala xidhxidhay oo qoqob ay ku kala jiraan. tallaabadaad qaadaba markaa waxaad gelaysaa dabin xiran, qof baa damqanaya. tallaabadaad qaadaba waxyaalaha imika caqabaddu naga qabsatay waxa weeye waxaa ka mid a waxaa la yidhi shanta Soomaaliyeed ha lagu howlgalo. ummadda Soomaaliyeed shanta qaybood gumaysihii caddaanka ahaa u qaybiyey. dhibaatadana waa wada haysataa aynu dhammaantoodba maaragtaanay dhulka ay kala joogaan ka howlgal. sidee loo koobayaa markaa ummaddaas? ummaddiisoo in la tilmaamo maaha. tilmaamihii ummaddaas ay yeelan lahaayeen ayaa maaragtaanay ay dhibaato ka taagan tahay. magacyo loo yaqaan baa jira. waad og tahay inuu kolley calanka Soomaaliya ee buluugga ah ee waddanka Soomaaliya la yidhaha u gaarkaa qaybaha kale maaragtaanay for example Djibouti iyo NFD iyo dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia qayb kama aha. macnaha calanka waddankaa loo sameeyey waxa uu matalaya xataa saddexda qaybood oo kale
waayo waa dhulka Soomaalida meeshii xornimada ugu hor qaadatay weey 5 geesood buu leeyahay xidig baa ku taala 5 geesood waxay tilmaamaysaa inay ummadda Soomaaliyeed 5 Soomaaliyeed inay jirto haddii maanta aynu isnidhaahno tilmaama 5tii Soomaaliyeed dhibaataynu kala kulmayno qolo waliba waxay doonaysaa in 5tii Soomaaliyeed gees walba magaca iyadu doonaysa loogu yeero qaar baa doonaya in geesaska qaar reer magacii loogu yeero qaar baa doonaya geeskii in la sii kala fadhiyo 3-5 gees laga dhigo qaar baa doonaya inay gees ka mid ah magaciisaba maqleen waa dhibaatooyinka ay qabyaaladdu iyo khilaafka gaamuraya dadka Soomaalida haysta uu keenay weey sidee hadaba looga gudbi karaa ma aan ku sii daro waliba waxa yeena jira arrinkan baynu soo noqonaynaa marka ujeedada ugu weyn ee ururka aynu asaasnay waxa war cusurnimada iyo waxaanaynu baabiino ummadda Soomaaliyeed lagu hayo tii halkay Soomaalidu ka taagantay qaar baa caqiidada islaamka meesha dadka muslimiintu ka taagan yihiin meel la mid ah ka taagan rag baa igu yiri iyo dumar isugu jira beejkaaga waxyaalaha aad ku soo qorto iyo waxyaalaha had iyo jeer ka hadashay arrimaha ku aadan ma jeclaysan lagama yaabo inaanu ama sheer garayno ama akhrino waayo naftayada ayaan uga hanweynay si toos ah la igu yiri dad i garanayay aniga noloshayda oo dhan baa igu yiri arrintan had iyo jeer aad wado waanu maaragtaanay qoonsanay dadka nin badan isnaqaan siniin arrintan aad wado ma aan fahmin nimanka saadaaydo markii hore aad been noo sheegtay miya suldaan waa sidii xaal kaas waxay u qaadan laayeen qof Soomaaliya oo aan beelahaas ahayn baa wali dhibaatana laga daayo beelaha subxaanallah Allahu akbar waxa weeye waa cusurnimadu meesha ay in gaarsiisay weey marka maxaa loo baahay in dadaal dheeriya laga yeelo bal xataa waxaan arkay dad marka ay haddii alla ka dhigayo arrinta aad kala hadlayso laba qaybood uu dareenkoodu isu bedelayaa adigu arkay waxa la kulmay tusaale ahaan had baan arrintan kala hadlay kala sheekaystay inay halka nagala qayb galaan iyagoo ay haysta inaan ahay nin ka soo jeeda beelaha Soomaaliyeed reer Mudug waxa ku dirqi ku ahaa hadalkan arrinta kala hadlay waan ku celiyay iyagoo ay aqoonsaday qofkaan ahay inta alla ka dhigayo iyo dahabta aan ahaynaan beelaha Soomaaliyeed kala mid ka mid ahay totally dadkii hore ma waa la ifrid baxaya talooyin baa la bixinaya sheekadii baa hadii alla ka dhigay intii hore ka sii daba dheer markii hore hadaan la hadlay 2-3 daqiiqo hadda waxa weeye wax loo galiyahay in hal saac la hadlo oo xataa waxyaalo fara badan la igala sheekaysto oo waxa weeye la sii magaciisiyo waxa soo dhan markaa waa caqabado jira weey yaa ka bixi kara markaa waxa ka bixi karaya dad horta marka hore islaam ah oo aaminsan waxa la yiraahdaa islaamnimada waayo qofku marka uu islaam yahay waxa uu haystaa oo aaminsan yahay waa caqiido sax ah oo cadeynaysa mugdiga iyo nuurka u kala cadeynaysa waxa mugdiga qabka kibirka isla weynida waxa weeye baanta aaminaada qof quraafaadka mugdigii bay u cadeynaysaa oo kaas mugdigi cadaankii ay tusaysaa in dadku alla abuuray siman yahay in basharka cid walba si wanaagsan loola dhaqmo inaan been la sheegin in kibirku yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hubiisa inaan cidina cid hayb uga weynayna dadku Ilaahay taqwadiisa ugu kala dhow yahay waxay tusinaysaa oo caqiidada islaamku ay tusinaysaa inay ceeb tahay inaad bashar alla abuuray hoos u dhigto
sida ay u egyihiin darteed oo ilaahay abuurtiisa fargeliso okay aswaata yaa kale arrintan gali kara waxa looga baahan yahay qofka Soomaaliga ah waxa loo baahan yahay qof Soomaali oo fayow oo haddii ay jiri jirtay malaayin markii hore uu aaminsanaa uu saameyn ku yeeshay halgankan fahmay wax hadda maskaxdiisu kortay iyo qof aan weligiiba hore ugu jirin oo aan marnaba aaminin waxa la yiraahdo inuu reer hebel iyo deegaan hebel ku naacay daayimiin darteed ayalaha ilaahay lagu mahadiyo waxa weeye waxa jira dabcan dad baa jira weligood intay noolaayeen aaminsanaa in qabyaaladu ay tahay wax ceeba dadka Soomaaliyeed oo dhan isku sii u jeclaa anigu ilaahay baan uga mahadnaqayaa subxaanahu wa ta'ala inaan isku dirinayo dadkaas ilaahay baan uga mahadnaqayaa ma aha galad aan si gaara aan aaminsanahay in maaragtay aan u tabcaday anigu laakiin waa ilaahay subxaanahu wa ta'ala galadiisu waxa loo baahan yahay dad isku sii u arka ummadda Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay dad dareenkooda wadaniyadeed qofnimo ummadnimo oo Soomaalinimo gaarsiisan yahay oo ka weyn yahay gobol iyo deegaan yes qof waliba meel buu ka yimi qof waliba dhul buu ka yimi qof waliba ummad buu dhashay dadka oran mayno ka soo taga deegaanadiinii iyo ummadiinii oo ilaaba oo gooy rixim laakiin waxaanu leenahay marka aad cayladaada iyo ehelkaaga la joogtana iyo deegaanka aad joogtana sidii nin dadkiisii la joogo u dhaqan oo hagaaji oo wixii wanaaga kala shaqee oo jeclow danta Soomaaliyeed markay timaadana sida taa hore uga shaqeynaysa tan uga shaqee soo gabagabaynayaa walaalayaal waxaynu u baahannahay haddaynu nahay bahweynta ururka cadaaladda iyo Sinaanata Soomaaliyeed SIME waxaynu u baahannahay inaynu gallo halgan wacyigelin qoraal hadal goob walba in la tago albaab walba in la garaaco masaajidada in laga kaco hadoogaada dadka shaqada gali karaya waa dadka aan sheegay oo kaliya qof inuu aaminsani gobol hebel ama qof hebel inaanu qabiil dadkii wuxuu weydiin karin shaqadan ma gali karo marka waxa wanaagsan inuu isagu bal ilaahayna bariyo cibaadaystana iskuna dayo inay naftiisu la qabsato halganka noocaas inuu damiirka noocaas yeesho inuu ilaahay bariyo iskuna dayo inuu kaaga dhawaado mar walba dadka waxa wanaagsan ka hadlayo dadka ummadda Soomaaliyeed isu soo jiidayo ururka cadaaladda iyo Sinaanata Soomaaliyeed SIME ugu horeeyo laakiin inta diyaarka oo ee damiirka noocaas maanta uu ku jiro ee islaamnimada saxda aaminsan halgankan waxa la yahay uga qayb qaateen wacyigelin aan kala joogsi lahayn albaab walba ay garaacayaan waxa loo baahan yahay in masaajidka laga dhex kaco sheekhu khudbada akhriyay in su'aal la weydiiyo yaa sheekh maxaa arrintan islaamku ka qaba ummadda Soomaaliyeed arrintan ma kala hadli kartaa khudbada jimciye soo socota madaxda Soomaalida inaad goob walba ku joojiso inaad gurigaaga iyo carruurtaada ka bilowdo wacyigelin baynu u baahannahay dheeriya oo ilaa xad ah insha Allah ta'ala waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaynu guulaysan doono waxaan jeclaan lahaa in la isticmaalo warbaahinta dunida waa nimco ilaahay weeye ilaahayna wuu nagu imtixaamaya dad fara badan oo hadda dhinaca qaldan u isticmaala jira sida xun dad fara badan oo isticmaala jira xagga wanaagsan intaynu isticmaalo ayaynu ummadda Soomaaliyeed aynu jecel lahay inuu ka dhalanay halgankeenu ku yeelan karaa saameyn ballaaran waayo qofka bini'aadamka waxa lagu celceliyaa saameyn baa ay ku yeelataa dadka waxa lagu celceliyaa reer hebel baa tahay landera tahay you are the best dadka oo dhan adiga ugu wacan baa lagu celceliyaa waxa lagu celceliyaa waad qurux badan tahay
wiilka laakiin Soomaaliyeed ee u dhashay beelaha jireer weyne waxa weeye waa nin magaciisaysan adiguna waxa tahay hebel dadka waxaynu ku celcelinaynaa insha Allah ta'ala naftaydana anigu waa number 1 hortiina ka ballan qaadaya inaan ummadda Soomaaliyeed ku celcelino kuna celcelin doono ummadda Soomaaliyeed way simanta ummadda Soomaaliyeed aafada haysata waa qabyaalad ummadda Soomaaliyeed cudurka u weyn ee haya in laga daaweeyo u baahan qabyaalad weyn qoorsiga iyo faquuqa iyo midabta koorku waa inay baabaan ayaan darro weeye in dal Afrikaan oo Afrika ku yaalo dhammaan dadka ku nool ay yihiin dal Afrikaan oo madow inay haddana uu jiro midabta koor waayo midabta koor ma jira miyaynu dhihi karnaa waa maya jawaabta inta aad aaminsan tahay wiilka Soomaaliyeed oo dhashay beelaha jireer weyne inaanu sidaada meeqaanka taagantay aanu joogin ee aad leedahay waa 0.5 ee gabadhaada oo ogolayn ee caayso ee gafur weyne san weyne magaciisi tamajirid sagaalka magac ee xad gudubka aad ugu yeerayso waxa tahay racist cunsuri midabta koor ku sameynaya qof Afrikaan oo madow isagoo Afrikaan waana wax ceeba weeyo laga xisho dunidu maanta cid allaale cid nagu garaabaysa ma jirto adduunyada Soomaaliya midabta koor baa ka jira South Africa inuu maqli jirnay waxa ka jira midabta koor iyo wadamada reer Yurub iyo Mareykan iyo waqtigii hore hadda wali waa la qarsadaa laakiin Soomaaliya waa la jaaraa waan arki jiray iyadoo ummadda dhan oo ismaqlaysa macnaha waxa weeye loo gafayo ummadda Soomaaliyeed siday u eegyihiin dartood waa dadka Soomaaliyeed ee ugu gabsan dadka Soomaalida ugu saaxiibtinimada ugu wanaagsan ugu wadanisan wax soo saarka ugu badan ee Soomaaliya waxa weeye aabaha iyo hooyada u ah haday beer tahay iyo haday bandar iyo ka shaqayntii tahayba insha Allah ta'ala dulmigu dhamaanaya waa Sultan Cabdikariim Faarax Dulmudi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.